maxay kula tahay inay tahay caqabadii ugu waaweynaa ee noloshaada la soo kulantay cashar laga baran karo maanta okay aniga shakhsiyan caqabadaha ugu waaweyn noloshada la soo kulmay waxay ahayd mid aad ii saamaysay dhaqanka iyo maxay haday baaki yaraan baan qurbaha ka yimid 9 jir baan ahaa markaan leeyahay dhaqanka dad fara badan waxay moodi doonaan inaan iska dhigeen animka qurba ka yimid may ujeedkaygu saas ma aha dad fara badan waxa jira wadanka ku dhashay oo aan meel u dhaafin laakiin samayskooga hab fikirkooga maxay haday baaki mabaadi'dooda aanay iswaafaqsanayn mabaadi'da caadada iyo culture-ka oo ah maxay haday wadankeena caqabada ugu weyn maxay waxyaabo fara badan la dhibtooday waxay salka ku hayeen dabeecadayda iyo mabaadi'dayda iyo saan wax u doono iyo waxyaabahan diido iyo waxyaabahan aqbalo inay in badan isjiiraan ilaa imika isjiiraan laakiin hore isu soo jeeri jireen maxay waxyaabaha taqliidka inoo ah dhaqanka inoo ah familiyadu siday u samaysan yihiin qofku markuu maaragtay qalad ku dhaco maxay qaabka loola dhiilgaray qaladkaas maxay hayday taakuladii garabka siyaabaha la isku sameeyo ilmuhu markuu qaldamo waalidku siduu canaanto waxyaabahaasoo dhan baan fahmi kari lahaa dabeedna waxay keensan jirtay inaan siyaabo qaldan aniguna radad facli fara badan oo qaldan aan in badan bixiyo basically isdhexgalka adaptationku in fara badan uu qaldamay natiijooyinka igaga soo noqonayo kolba waxyaabahaas asaaskugu qaldanaana sidaan ula dhiilgaraynaya ma garanaynin oo noga dabalana iminka waan koray waa weynaaday markaan arkay inaanay wax anigay waafaqsanin waddadaasan ka maray assalaamu calaykum qofka waxuu noqonaya aniga maaha baan idhaahdaa laakiin markaas maxayday laguma aqbalayo waxaa lagu arkayaa sidii qof maaragtay waxa la yidhahda inta badan ma wadarta hawaalin mise waaxidka adiga xataa dadka kale marka laga yimaado aakhirka waxaad soo istaagaysaa marxalada tiraadid niyo wadarta wax kama siiya aad iska shakinin adiga wax kaa siiya marxaladaasna waan maray laakiin markaan kasoo gudbay marxalada waxaan awood u yeeshay inaan dib u qiimeeyo idhaahdo no xagga wax iska jeeriyeen waxaa weye mabaadi'deydii iyo mabaadi'da badanaa bulshadu ay haysato khaasatan faamiliyada iyo waxyaabahaas isma laha dabeedna aan aqbalo caqabadaha igaga imanayay barto sida loola dhiilgareeyo labaad waxa weeye mental healthkayga mental health markaan idhaahdo alxamdulilah horta imika alxamdulilah wax fara badan wacyigelin fiican baa laga sameeyey waxaan kamana baqaya markaan idhaahdo mental health problems baa ila soo darsay in dadku ay odhan doonaan way waalan tahay alxamdulilah taas kama baqayo laakiin يعني waxyaabaha fara badan ee isjiidayay iyo khaasatan waxqabadyadan yaraanta isku dayay inaan kula imaado kolba ku fashilmayay ee aanan maxay haday bahki garab iyo musaacadadii cidii fahamsiisa in waxani caadi ay tahay in maaragtay qof walo entrepreneur ah maxay haday ay wax ka fashilmaan aniga keligay aanay ahayn inaan wax iga si ahayn maxay haday haddaan haysanaa dad marka ay fahamsiin lahaa mental healthkayga saameyn kuma yeeshan laakiin waxyaabo fara badan baa kulba qalooc sameeyay mental healthkayga dabeedna saameyn ku yeeshay depression fara badan baan la soo darsay maxay hayday self doubt fara badan inaan anigu iska shakiyoon anigu isiraado malaa waad waalantaysan ku sheegay yani wax wali waxay lahayn malaadii wax kaa qaldayin familigan kasoo jeedo maxay hayday يعني qoyska inta igu dhodhow maaha dadku markay yidhaahdaan familigaad kasoo jeedid waxay soo qaadaan familiga dhan magaciisa jilibka waxaasoo dhan no I'm talking about walaaladay iyo aabahay iyo adeerkay iyo inta da awowgay dhalay tafiirtiisa kuma jiro qof maxay haday baki waxqabad ganacsi maxay haday abuuray ama uu hirgalay qof xataa abuuray kuma jirto dabeedna caadada iyo waxqabadka ganacsiga iyo hal abuurka iyo qofku inuu wax cusub isku dayo inuu hirgeliyo ayaa ah marka ugu horeysa inuu 1 2 3 markii ugu yarta ay wax ka xumaadaan maxay hayday marka aanad resources dhaqaale haysanin deyn baad gelaysaa deyn baa kugu go-aysa waayo wixii si aad u dhaqaajisid kharash baad u baahantahay kharashkii haddaan haysanin dabcan aanad doonin waxan inaad iska dhibtid waad u deymoonaysaa wixii deedna deyn baa kolba kugu fadhiisanaysaa in la yidhaahdo waxbaa ka siya maxaa ku waalay qeyrkaaba kolba deymu kuma go-ayaan iyo waxyaaba la halmaala bay ka mid ahaa horta caqabadaha ugu waaweyn shakhsiyadayda iyo dhaqankii isqaadan waaye iyo anigoo hal entrepreneurship ay iga dhigto hal abuur ganacsigan kolba ku fashil maaye